السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو برو تكنولوجي مقعي ومحمد وحانا هاي سوصارها فيديوغا. عشر كينو كسو ابسانيا هاي مانتا يوتيوب inaad waxyaabo badan ka baratid. Marka hore YouTube hadaynu soo furano application kan sitikiisa iyo inaan eegno waxyaabo yar yar oo update kan u dambeeyay uu leeyahay. Hadaynu soo furano qaybtan horta waxa ku jirta your channel inaad channelkaaga booqatid iyo time watcher kaas oo ah waqtigii inta daawatay maalin kasta YouTube inta daawatid mid kasta oo eegi doona paid membership switch account ina isaga baxda account-kaaga turn on incognito iyo inaad ku sameeyso waxa loo yaqaano inaad isqarisid oo kale weeyaan in sitikiisa iyo in help and feedback waxyaabahaas si guud weeyaan waxyaabo ka hadlayo. haddaan mid u booqano kan waa qaybtii channel-kaaga ayuu ku saabsan yahay oo channel-kaaga waxa ku saabsan yahay kan kale hadaan dib ugu soo noqono time watch weeyaan waqtiga aad YouTube ku qaadatid hadeerto 2 hours iyo 15 minutes daily average maalin kasta celcelis ahaan 2 saacadood iyo 15 daqiiqo ayaa ku qaatay uu leeyahay last 7 days waa 15 hours 47 wax noocaas weeyaan adigu waqtiga ku ogaan kartid waqtiyada saad inta ku qaatay saacadood YouTube-ka isbuucii daily average ahaan waxa soo dhan ku saaraya kan hadaynu ka gudubno hadaan dib ugu soo noqono kan paid membership kaas muhiim aha switch account-kana waa ka saari kartaa sana muhiim aha hadaynu eegno turn incognito oo ah inaad isqarisid ama email-kaaga isaga baxid oo aad email-kaaga ka maqnaatid ama account-kaad ka soo gashay YouTube channel-kaaga inaad isaga baxid weeyaan oo incognito macnaha weeyaan inaad isqarisid weeyaan waa ereysi adag. hadaynu dib uga noqono incognito tan turn off nahno sababtaas uu ku hadlay email-kaaga dib ugu soo celinaya waxaan sameyn karnaa hadaynu dib ugu soo noqono waxa kaliya noo haray waxa weeyaan setting-keena galno setting-kana waxyaabo fara badan ka barbarano. hadaynu setting-kiisa nimaadno horta general waa si guud waxyaabahan halkan ku jira inaad ku sameysid video-gaaga restricted mode inaad sameysid waxyaabo fara badan baa ku jira dib aynu ugu soo noqon doonaa generalka kan auto play baa la yiraahdaa downloads adiga waxaas way fara badan yihiin mid u sheegno mar laakiin inta muhiimka ayaynu rabnaa inaan ka eegno. hadaynu galno general aynu ku horeyno laba option oo muhiim ayaa halkan ku jira runtii oo ah restricted mode oo inaad restricted mode kaas markasta waa ka xiran yahay waa inaad restricted mode ka aad furatid waayo haday ku furan restricted mode kaas fiidiyoyada anshax xumada oo dhan oo YouTube-ka markaas soo bixi doonaan intuu restricted mode kaas ku furan yahay fiidiyo caadi ah ku soo saaraya wax anshax xuma ku arkaysid. mid kale jirta oo ah dark theme oo aad ku sameyn kartid YouTube-kaaga qaybtii madoobeed ayaa ka dhigan kartaa ama madow ayaa ka dhigan kartaa ku isticmaali kartaa hadad jeceshahay qof dark theme-ka ama madowga in YouTube-kaaga cadaanka aad yara nacabtahay kana ku isticmaali kartaa dad badan oo ku isticmaala way jiraan. waxa kale oo jira isaguna hadaynu hadeerto eegno dark theme-ka qaabka YouTube-ka u kaanay wada madow waad aragtaan qaabkaas ayuu dark theme-ku u kaanaya. hadaynu ka noqono aynu ku soo noqono setting-keeni general aynu iska bedelno cadaankeena ku soo ceshano horta halka laba option oo muhiim ah ku jira oo dark theme iyo restricted mode kaas waa laba option oo muhiim ah. wax kale ayana jira history and privacy waxa weeyaan clear watch history inaad iska clear gareysid waxyaabaha daawatid iyo inaad waxaad search gareysid badiyaaba aad iyana iska clear gareysid waxyaabo fara badan baa ku jira. hadaynu eegno dib ugu noqono waxyaabahan halkan ku search karayno waa jiraan kuwaas
mid oo delete gareyn kartaa hadaa rabtid inaad wada delete gareysid mid waa isaga remove gareyn kartaa hadaa rabtid inaad wada remove gareysid setting hadaynu kusoo noqono qaybahan ayaa ka remove gareyn kartaa qaybtan history and privacy qaybtaas ayaad ka hadaynu clear nahno clear buu ka dhigayaa ama nadiif buu ka dhigayaa oo waa ka baabiinaya wixiiba wax hadda kuma jiraan search wad aragtaan hadaynu kusoo noqono qayb kale ayaa jirta oo qaybtan halkana oo watch history ah waxyaabaha aad daawatay hadaynu markaa ku noqono hadaynu ku noqono settingkii aan history and privacy ga tagno oo clear watch history ga aad tagtid iyagana uu ka nadiifinayaa waxyaabaha aad daawatay iyagana uu ka nadiifinayaa waa ka wax watch history kuma jiro wada aragtaa marka waxyaabo fara badan baa ku jira runtii YouTube-ka version-ka kugu jira halkan ka ogaan kartaa version-ka intuu yahay waa kan qaybtan kaaga soo saaraya waxa kale oo ku soo saari karaa waxyaabo fara badan baa runtii ku jira notification-kaas wada aragtaa subscription-kaaga waxaas oo dhan ku jiraan laakiin inta ugu muhiimsan ay runtii waxyaabaha ugu muhiima oo dadku ma wada isticmaalaan intaas ahayd waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iiday casharkan intaan isugu soo noqonayna casharkan iyo cashar kale xiiso leh waxaan ka rajaynayaa inaad subscribe saartid sidoo kale haddii video ka heshid like saartid siina share gareysid si aad u gaarsiiso asxaabta waad mahadsantahay